السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waan idin salaamayaa dhammaan bulshooyinka Somaliland meel kastoo joogtaan. Bacda salaan kaliibkan waxaan usoo duubay waqti marti official oo aan baraarujinayo inay dib u soo noqdayaan kooxdan muddo 4 sano ahba ka maqnayd shaashadaha iyo YouTube-ka. Asxaabta anigoon halkan ka magac dhabay midka dee muhiimka ah laga maarmi waayo mooyaane dee biigka muxuu yidhi qolaa laga guurayaayo qalin baa loo guurayaa, qabiil baa laga guurayaayo qaran baa loo guurayaa. war saaxiib maxaa idinku dhacay? inagoo muddo imika laga joogo 5 sano ah ay kooxdeedu jirto, haddana kooxdii may noqonin koox caalamka caanka ah oo laga yaqaano. maxaa dhacay ee sababay saaxiib? waxaan u sheegayaa dhammaan kooxdii marti official oo ugu horeeyo nuuritiin mubaarak oo imika mubaarak uu ila joogaa. nin kale oo la yidhaahdo sayid muhubsade ayaan iloobay isagana. sayid muhubsade waxaan ku leeyahay adiguna dee kaalayo kooxda in member waxaad ka haydo shakhsiyaadka muhiimka ah ee loo baahan yahay waxna magaranaysa niyow kaalayo mar labaad kooxdii aanu dib istaagno dib u shidno mar labaad samayno lafa yare dhammaan iyo kooxihii kale ee intii kale ee ku jirtay murti official intii 18 May gaadhin inay isu yimaadaan oo kooxdii aan guddoomiyaha ka ahaa aanu mar labaad dee sidii aanu magaranaysaa aanu kor ugu soo kicin lahayn filibedka ogeysiiskaasaan gaarsiinayaa dhammaan kooxdii murti official ee ku samayn jirtay riwaayadaha halkani magaalada Hargeysa gaar ahaan Gacalibaax iyo Juun iyo maxay ahayd toy magaranaysa magaalada Hargeysa goobo kale oo badan ba. marka waxaan leeyahay kooxda war codkaygan iyo fiidiyoogan markii soo gaaro saaxiibayaal soo hadlo wixii kooxda ku qabyaalana in la isku hagaajiyo deetana saasi aynu magaranaysaa mar labaad aynu ku bilowno hawsheenii iyo dee fikirkii dheeraa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.